dadka meesha fadhiya anaa ugu daaweyn baan u malaynaya ana weli ma daalin ayaa daalay dadka magaalada usaa daalay saaxiibkay xaaf wuxuu yidhi anaa meeshaan ugu weyn anna ma daalin taas runtiis run maaha taas anaa markhaati ka ah inuu daalan yahay wada soconnay iyo baawur ka degi waay mudane madaxweyne xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare gudoomiyaha baarlamaanka galmudug saraakiisha asxaabta odayaasha saxaafadda ba'da saxaafadda fanaaniinta qiimaha leh oo aada iyo aada loo maaweyniyeen haddaan nahay reer Cadaado soo dhaweynaynaa haddaan nahay reer Cadaado noo soo dhawaada waa joognaa waana imaanaynaa waana joogi doonaa halkaan noo jeeran ku xafladaynay caawa nooguma horreyso wax cusub ciddii ay ku cusub tahay oo horaan meesha ugu xafladayn jirnay haddana waa sii xafladayn doonaa insha allahu tacaala waqti fiican ayaan heli doonaa waa iskaa saqdhexa aroortiina waa la kallahayaa aada iyo aad baan maaragtay idiin soo dhaweynayaa arrintu ma fududa galmudug madaxweynihii maantay wuxuu soo maray jidkii dheeraa oo raaxada badnaa oo ilaa gaalka ayaa 4 saac soo socday berritana 3 saac uu dhuusanaagu sii socon doonaa insha allah cawdaagu saada buu sii socon doonaa 3 saac oo kale madaxweyne umar horta nala arka waxaan ku nool lahay iyo sidaan ku nool lahay aad baan ugu faraxsanahay inuu nagala qayb galo arko dhibtaan ku nool lahay iyo sida aan ku nool lahay aada iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu halkaa ka fikrad qaato dadka iyo dalka halka joogana oo hadda wixii ka dambeeya sidii hore si ka maaragtay firfircoon uu noola shaqayn doono dekadii waxbuu nagala qaban doonaa jidadka waa nala dhisayaa waxaan rajaynaynaa waxqabad aada iyo aada u fara badan baan madaxweynaha ka rajaynaynaa madaxweyne reer galmudug waa kuu fadhiyaan caawa Cadaado oo hooyadii galmuduga ayaan joognaa oo runtii ammaan fara badan mudan yani 2 sano iyo markaas aan nabad iyo maaragtay nolol fiican ku joognay ilaa haddeerna sidii maaragtay ugu shidan aan u jeedno madaxweyne waa kuu soo dhaweynaynaa noo soo dhawow nala dardaaran بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha mudane xaaf madaxweyne ku-xigeenkiisa golihiisa baarlamaanka iyo guddoonkooda golaha wasiirada ee federaalka oo ila socda xildhibaanada labada aqal taliyaha ciidanka salaadiinta halkan nala joogta culamaa udiinka dhalinyarada dumarka kooxda howlada waa beri ma maqlaysaan kooxda howlada waa beri galmudug kulligiin waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bahda saxaafadda inaan ka taga ma rabo saaxiibkay xaaf wuxuu yidhi anaa meeshaan ugu weyn anna ma daalin taas runtiis run maaha taas anaa markhaati ka ah inuu daalan yahay
shalay maraan wada soconay yuu baabuur ka degi waayey abshir bukhaari oo la kaftamaya wuxuu yidhi madaxweyne madaalan tahay wuxuu yidhi tan daal waa dhaaftay waa loo baahan yahay inaan xoogaa dee aan qosolno oo seriaska xoogaa ka baxno marka xaaf iyo aniga waa daalanahay labadana waa daalanahay laakiin wuxuu rabay dadka inuu hurdada ka kiciyo waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug iyo shacabka iyo dadweynaha reer galmudug sida wanaagsan oo diiran oo waaltinimada leh nagu soo dhoweeyey sida wanaagsan oo qurxoon oo dal jeceelka ah dawlad jeceelka ah iyo madax jeceelka ay nagu soo dhoweeyeen marna waxaan iloobeynin tuulo walba aan soo maraynay magaalo walba aan soo maraynay waxaa taagnaa caruur iyo ciroole yaa taagnaa oo aan hubo inay ka dhex inay runtii ay lahaayeen meherad iyo shaqo ay lahaayeen laakiin jeceyl ay noo qabaan inay og yihiin aan soo soconno ay jidadka noo taagnaayeen saaka laga bilaabo aroorta hore ilaa markii ugu dambeysay aan halkan nimid oo qoraxdu dhacaysay oo aad noo taagnaydeen aad iyo aad yaan kaga mahad celinaynaa sidaas wanaagsan oo waaltinimada leh oo aad noo soo dhaweyseen jidka mar labaad mudane xaaf wuxuu yidhi jidka waa raaxo badnaa wax raaxa ma arkin aniga weliba raaxo ma ahay keliyaha bay xanuunayaba jidkaasi wuxuuna siinayaa 2 cashar 2 deris uuna siinayaa mid wuxuuna siinayaa wixii aan ka dhaxalnay dawlad la-aan iyo burbur iyo qabiil waxaan ka dhaxalnay oo ay tahay indhaha inaan u furno inaan ka gudubno waxyaabihii burburka noo keenay oo ilaa hadda aan la dhisan la'nahay jidadkii oo meeshii loogu talagalay nus saac ama 1 saac aan usoo soconno 4 saac iyo kaliya xanuun waxaan kale oo aan ka baranay inay tahay inaan isxilqaanno oo aan u istaagno inaan dib u dhisanno aynan fiirsan maalin walba taako aan dhisanno maalin walba taako waxaa laga yaabaa intay rabta ha qaadato markaan isku tashanno oo aan isku kalsoonaanno oo wixii aan hayno kan ganacsadaha ah kan shaqeeya kan reer miyiga ah dawladda iyo caalamka wax alla wixii ay noogu deeqaan aan jidkaas ku dhisanno waxaan qabaa inaan gaari karno meesha aan doonayno inaan gaarno si uu jidkaas sida dhabtaa uu noogu noqdo jid raaxa loogu socdo runtii waxaan kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaasna soo dhaweeyey oo wanaagsanaa inay ka muuqatay ma maqlaysaan inay ka muuqatay adkaysi fara badan oo qaarkood laga yaabo inaysan quraacan inaysan biyo haysan inaysan qadayn laakiin inayna arkaan oo na salaamaan keliya oo weliba qaarkood na dhunkanaya sida ay u jecel yihiin madaxdooda waxayna gelinaysaa diilo cusub inaan aada u shaqeyno inaan ka naxno inaan maxaan ku idhahdaa aan la seexan oo habeen iyo maalin aan dadkaas u shaqeyno oo naga rajeynaya inaan mustaqbal wanaagsan iyo horumar aan gaarsiino socdaalkaygu runtii wuxuu ahaa socdaal aan ku macneeyey socdaal nabadeed iyo socdaal dib u heshisiin mudane xaaf qayb yuu ka ahaa runtiina waa ognahay oo 2 marxaladood yaan rabaa inaan wax ka idhaahdo 2 arrimood aan rabaa inaan wax ka idhaahdo tan gaalkacayo wax weyn ayuu ka geystay
isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan u soo diray in uu muddo fadhiyo uu ka shaqeeyo 2 bilood ka hor in dadka waalaha ah oo kala xirnaa muddo dheer dagaalada iyo colaadda muddo dheer haystay oo weli ay ku dambayso dagaalkii sokeeye magaaladaas Gaalkacyo in aan ka dhalinno inay noqdaan dad waalaha oo heshiis ah oo magaaladaas ku midooba inay noqdaan runtiina taas waxaan ka gaarnay heshiis laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay dhaqangalkiisana waa gaarina insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo heshiiskaas ma bilaaban hadda heshiiskaas wuxuu bilowday 2011 markaan anugu prime minister ka ahaa 2 dhib baa dhacay mid wuxuu ahaa Gaalkacyo ka dhacay maamulka Galmudug iyo Puntland iyo maamulka Galmudug iyo markaas maamulka jiray oo ahaa Himan iyo Xeeb oo Cadaado ahaa xaruntiisu ay ahayd Cadaado arrintaas runtii laguma guuleysan laakiin bilaaw yahay laakiin hadda waa naga go'an tahay inaan dhamaystirno hadduu eebbe yiraahdo aan ku bixino juhdi waqti iyo dhaqaalaba aan ku bixino si magaaladaas dhibaataysan oo qadiimka ah oo taariikhda leh dadka waalaha oo degan ay u midoobaan ayna wax u wada qabsadaan horumarkoodana uga shaqaystaan laakiin tii Galmudug iyo Himan iyo Xeeb waa ku guuleysanay maxaa yeelay waxaan u soo dirnay guddigaas oo 3 bilood dhex fadhiyay 2 beelood dhex fadhiyay halkan waxaa nala jooga caalim madaxweynihii hore khayr Allah siiyo oo runtii door fiican ka qaatay hadduusan isaga ahaan lahayn iyo guddigaas ay ahaan lahayn waxaan aamsanahay dhibka hadda laga sheegayo Gaalkacyo mid 10 jibaar ay u dhici lahaa laakiin hoggaankiisa wanaagsan iyo dadka runtii la shaqeeyay iyo annagoo daba taagneen Ilaahay waa noo guuleeyay 3 bilood yaan dhex fadhinay waxaan ku bixinay dhaqaale badan waxaan ku bixinay waqti badan alxamdulillah dhibkaasna meeshaas ku ekaaday dib dambe uma soo noqon taas marka aan wax ka baranno inaan arrintan taagan oo dhammaan la inaan waqti siino dadka hadda ku jira oo salaadiinta iyo culimadana aan gacan ku siino iyo madaxda hadda ka shaqeynaysa meeshu ka bilowdo waan naqaanaa inaan dhamaystirno insha Allah Ilaahayna uu gacan nagu siiyo arrinta labaad oo mudan xaaf uu ka shaqeeyay waxa weeye arrinta ahlu sunna oo jamiica oo aan biri u soconno magaalada Dhuusamareeb aan u soconno arrintaas wuxuu ka muujiyay runtii xilkasnimo iyo odaytinimo hoggaameed uu ka muujiyay weliba taas kaliya ma ahee shaqadiisii nus yu bixiyey ma aqaan wuxuu samayn doono wixii hadda ka dambeeya laakiin wuxuu ku doorsaday dadkiisa inuu mideeyo gobolkiisa inuu mideeyo ku doorsaday waana waxa qof walba mas'uul laga rabo oo ah inuu taariikh ka tago legacy ka tago oo la yiraahdo xaaf intuu joogay muxuu sameeyay wax kasta waxa ka muhiimsan haddaad dhiig baajiso haddaad dad waalaha heshiisiiso haddaad mustaqbal u samayso yaa wax walba ka muhiimsan waa ku mahadsan yahay walaalkan xaaf insha Allah taariikhda qoraysa Cadaado maxay ka geysatay hawshaas degmadan iyo magaaladan Cadaado iyada naftigeeda dib u heshiisintaas qayb weyn iyo ka qaadatay dadka degan maxaa yeelay markii hawshan dhinac u bixi weyday iyadaa tiri annaga martigelinayna dawladdii intaasna wax dhibaato dhacay ma laha dawladdu waa ku shaqaysay waana ku mahadsantihiin
meel fiican iyo wax soo gaarsiiseen idinkana taariikhda idin qoraysa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo magaaladan taariikhda qoraysa iyo dadkeeda insha allah kolleyba wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa sidii aan gobolkaan u dhisi lahayn dowlad goboleedkaan u dhisi lahayn wax alla waxay u baahan tahay oo karaankeena aan gacan ku siin lahayn jidkaas ugu horeeyana aan dhisi lahayn si dhaqaalaha iyo dadka isu socodkooda uu u fududeeyo hadduu eebba yidhaahdo idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad waddaan halgankiinnii wanaagsanaa martigelintiinnii sharaf ka badnayd dulqaadkiinnii soomaalinimadiinnii dowlad jeceelkiinnii inaad meeshiina ka waddaan oo aad oad arkaysaan inuu ka tanaasulayo isaga naftigiisa xilkiisii intiisa badnayd aada gacan ku siisaan in dowladda galmudug ay lugaheeda ku istaagto annagana federaalka qayb weyn ayaan ka qaadanaynaa waa mahadsantihiin walaalayaal haddana waxaan kusoo gabagabeynaynaa inaan shahaadooyin bixinno oo abaalmarina shahaado sharafyo oo abaalmarina waayahay markaana waxaan u yeelayaa maamo kale oo ah maamo xaawo abtidoon keliya madaxda maamada waxaa lagu xasuustaa camalka soomaaliga ee mashruucda ka ciyaara waa maamada gacanta ku haysta ee mar walba soo weysanaa marka hidahay caanaha siisay waa maanta caanaha siisay iyo ما شاء الله ماما أنا ما تدرك يا أنا ما تدرك يا هذه ما شاء الله